waxaanu ku bilaabaynaa baarlamaanka Puntland oo ka kooban 66 xildhibaan ayaa bari waxa ay dooran doonaan madaxweyne waxaana maanta ay dhageysteen khudbadaha musharaxiinta u taagan xilalka madaxtinimada. guud ahaan musharaxiintu waa 32 musharax oo ka kooban 22 musharaxiin madaxweyne iyo 11 musharaxiin madaxweyne ku xigeen ah waxaana si weyn loo adkeeyay amniga magaalada Garowe waxaana la sheegay in la xiray kontrolada iyo dhamaanba meelaha laga soo galo magaalada xarunta u ah Puntland sida ay sheegayaan mas'uuliyiinta amniga ee doorashada Puntland waxaana muuqata in uu hirgalay go'aankii dowladda Puntland ee ahaa in madaxda dowladda federaalka ay ka mamnuuceen inay yimaadaan Garowe inta lagu gudo jiro doorashada warar ayaa sheegaya in wasiirro iyo xildhibaano shalay u duuli lahaa Garowe ay u suurtagali weyday inay ka ama baxaan garoonka magaalada Muqdisho. haddaba wariyaha BBC-da Khalid Baruud ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Garowe oo sharaxaya doorashadan iyo ahmiyadeeda. Garowe caasimada maamul goboleedka Puntland maalin ka hor doorashada madaxtinimada inta ay ishaadu qabato laamiyada magaalada waxaa ka taagan boodhar ay ku xardhan yihiin halqabsiyada musharaxiinta. waa tan xarunta doorashadu waxayna maanta 21 musharax khudbada uga jeediyeen xubnaha golaha wakiilada. waa doorashadii afraad ee ka dhacda Puntland 20 sano ee ay jirtay. xildhibaanada dooranaya madaxweynaha waxaa soo xulay isimada iyo cuqaasha deegaamada Puntland. waa habkii lagu aasaasay maamul goboleedkan. haddaba maxay tahay sababta ay Puntland ugu gudbilaadahay doorasho ah hal qof iyo hal cod? waxaan isleeyahay caqabada u weyni waa doonislaan xagga doonislaan siyaasadeed oo runtii maamulada hogaankoodu ay samunaan fiican marka fiilisid dadku sida u dalbanayaan iyo maaragtay 20 sano kadib Puntland inay wali isticmaalayso nidaamkii lagu asaasay oo runtii aad dareemaysid inaysan mudnayn dadka reer Puntland inay mudan yihiin horumar inta ka sareeyay inuu nidaamka laga sameeyo isagoo waliba xataa saameyn ku yeeshay xataa matalaadda qaybo badan oo kamid ah bulshada. waxaa doorashooyinkan dadban matalaad la'aan ku ah qayb lafdhabar u ah bulshada Puntland. nimco cabdi caarshe waa haweeneyda kaliya ee ku jirta 66 xildhibaan ee bari dooran doona madaxweynaha 5 sano ee soo socota waxayna dareemaysaa in tiir ka mid ah bulshadu uu ka maqan yahay golaha. waxaan dareemayaa in haweenweynihii Soomaaliyeed aysan maanta wax xubno badan ka joogin oo aan kaligay ka joogo. waxaan jeclaan lahaa in haween fara badan xuquuqdooda helaan oo joogaan oo maanta qabaa'ilku soo xulaan dawladuna accept garayso. marka waan dareemayaa in xuquuqda haweenku wax badan ka maqan tahay haween fara badan maqan yahay oo soo abalay gareeyay waliba. dhanka kale haweenka waxaa lagu dhaliilayaa inaysan dadaal u gelin sidii ay u matali lahaayeen deegaanadooda. waxaa laga yaabaa reerka xubin leh in 15 nin isu soo taagto inay xilka qaadaan. laga yaabo inaan hal gabar imaan ama hal gabar timaado waqti aan bahalka ahayn. marka ninka isimka ama caaqilka inuu fiiriyo marka dadka badan oo wax doonaya qofku isleeyahay ama waa kugu soo horeeyay ama waa u macquulsan yahay maanta masiirka ummadda lagu aamini kara ama siyaalo badan inuu eega dhici karta laakiin waxaan haday iyagu ay dalabkooda badan yahay ama inta raga ka doonaysa in leeg doonayso waxaan rajaynayaa inay ka soo bixi lahaayeen. haween badan ayaa aaminsan inaysan caqabadu ahayn kartida iyo hanka dumarka balse lagu reebay dhanka dhaqanka. haweenku han way leeyihiin awooddaasna way leeyihiin wayna soo doonteen horeyna u soo doonteen anaaba kamid ah xilligan hadda 14 laga hadlayo 13 baan ka soo bilaabay doonida xubintan xildhibaanimada waana loo diiday taasina waxay salka ku haysaa dhinaca dhaqankii ayaan ogolayn inay dumarkii heerkaas ka gaaraan wala marmarka qaarkood aan maqlaysid qaramada midooban hayna siiyaan koontada ay ballan qaadeen. sidii ay horeba u ahaan jirtay musharaxiin badan ayaa ballan qaadaya inay wax ka bedelayaan nidaamka doorashada taasoo ay shacabka Puntland wali uga fadhiyaan. doorashada Puntland waa mid saameyn weyn ku yeelan karta Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika. waxaa aad loo xoojiyay amniga magaalada Garowe gaar ahaan agagaarka xarunta baarlamaanka oo ay barita ka dhacayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. waxaana magaalada soo buux dhaafiyay dad ka yimid dalka iyo dibadda si ay ugu ololeeyaan musharaxiinta ay taageersan yihiin.
laakiin waxaa codka dhiibanaya 66 xildhibaan oo keliya. musharaxiinta ayaa khudbado 10 daqiiqo ah ka hor jeediyey xildhibaanada, hase yeeshee taasi uma muuqan wakhti lagu gudbin karo barnaamij siyaasadeed oo dhammaystiran, iyada oo ay qaar ka mida kuraasta xildhibaanadu ay bannaanaayeen xilligii ay musharaxiintu u jeedinayeen khudbadda golaha wakiilada. Qaalib Xasan Baaruud, BBC, Garowe.